bismillahi raxmaan raxiim waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay inay xafiiska nagu soo booqdaan amisom oo ugu horeeyo ku-xigeenka madaxa amisom iyo midowda africa ee soomaaliya sidoo kale commanderka ama force commanderka amisom oo isagana maanta nala jooga iyo dhammaan mas-uuliyiinta ka socoto ciidamada amisom iyo xafiiska siyaasadda ee midowda africa waxaan ka wada hadalnay sidii runtii aan uga wada shaqayn lahayn nabadeynta dalka gaar ahaan caasimadda waxaan ka wada hadalnay arrimo fara badan oo ay ka mid tahay xiriirkii wada shaqaynta waxaan warbixin ka siinay sida xaaladda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga ee caasimadda ee aan wadno waxaan kaloo warbixin ka siinay sida aan bulshada ee caasimaddu ay diyaar ugu tahay amnigii nabadeynta iyo sida aan mar walba bulshadana ugu dhowaano uguna adeegno sidoo kale waxaan uga mahadcelinay midowda africa ciidamadooda sida geesinimada leh ee walaalahood iyo walaalaheen ay noogu soo gurmadeen ilaa haddana dalka u joogaan soomaaliya si kooxahan argagixisada meel looga soo wada jeesto waxaan aaminsannahay in ay runtii ay guulo fara badan laga soo gaaray arrimaha la dagaalanka argagixisada marka loo fiiriyo dalalka kale ee ciraaq iyo afghanistan oo runtii caalamku lacago badan ku bixiyo haddana soomaaliya inay mar walba ay guulo fara badan ka soo hooyaan haddana sidii lagu dardargelin lahaa waxaan kala hadalnay si muqdisho amni u noqoto oo in shabeellooyinka laga xoreeyo kooxaha argagixisada arrimahaasoo dhan marka aad iyo aad aan uga faraxsannahay imaatinkooda iyo waxaan ku heshiinay inaan guddiyo labada dhinac samaysano si joogto aan uga shaqeyno amniga iyo nabadeynta marka waa mahadsantihiin. Thank you so much. My name is Mlongo Simon. I'm the Deputy Special Representative of the AU mission and also Deputy Head of AMISOM. I have come with my colleagues, the Force Commander, General Tigabu, and also the Special Advisor to the SRCs on Transition Matters, General Subagle, and other members of the delegation from Sector 1, Force Headquarters, and Mission Headquarters, who is the Political Affairs Officer. The purpose of coming here was dual. It was both a request and an invitation by His Worship the Mayor as a follow-up on our customed interactions between the mission leadership and both the Bandir Regional Administration and also the Mayor's Office. We have discussed a wide range of things, starting with a briefing to His Worship the Mayor as to the activities we are doing as a mission of late, including the concept of operations that is in place to guide the activities of the military, activities of the police, and activities of the civilian component in Mogadishu and in the entire area of responsibility. We have also reviewed the security status of Mogadishu and agreed on a number of measures to be taken to strengthen further and bolster the security of this great city. Mogadishu is not only the center, the seat of government, but also the home of all of us and over 3 million or so Somali nationals and international people. So we believe that by securing it further, it will enable us to even extend the same security arrangements beyond the borders of Mogadishu. We've also agreed on reviewing and strengthening the relationship mechanisms between AMISOM and the Office of the Mayor. And to that end, we're going to see more structured, more regular interactions between the Office of the Mayor and the AMISOM. We can assure you, using this opportunity, that AMISOM will continue to support the federal government of Somalia, the federal member states, and the entire population of Somalia
on matters of security. And this is what we have come to repledge that commitment. And together with him and his office, we can assure you that there will always be a difference between now and some time to come. Thank you very much.